lacagtii khasnada ku jirtay qayb yar oo kamid ah khasnada badan baa bangigu leeyahay khasnada hoose hawl maalmeedka lagu maamulo oo yar lacagtii ku jirtay baa wax la arkay qaarkeed inuu yahay lacag aan sax ahayn ama lacag been abuur ah oo dollar ah arintaas waxay ku timi subaxii markii khasnada la furay baa wax la arkay lacag 10,000 oo dollar meelahaas oo loo arkay inay tahay lacag been ah kabacdina ninkii kaashiyerka ahaa baa waxa dhacday inuu awood u helay si qaldan inuu markaas u baxo meeshii isla markii ay ahayd in la qabto oo moota waxaas oo la xiro ninkii isla markiiba waa la raadiyay raadintiisiiba moogtahay la weli lagu jiraa kabacdi khasnadihii iyo lacagihii oo dhan baa dib loo tiriyay dib markii loo hubiyay waxa soo baxday lacag 530,000 oo dollar ah oo been abuur ah oo lacagtii rasmiga ahayd oo lacagtii khasnadii yarayd ku jirta kamid ah baa la arkay sababtay ku dhacdayna waxa loo arkayaa bariyahaas ugu dambeeyay ninkaas khasnajigaahu inuu lacag been abuur ah intuu qabto lacagta kale oo ku dhaxdari jiray lacagtii marka guud ahaan hadii dusha laga eego moogtay waxa weeye lacagtii waa dhan tahay laakiin mushkiladii waxay tahay lacagta intaas leeg 530,000 oo dollar markii aan ku celiyay baa waxay tahay lacag been abuur ah oo aan sax ahayn isla markiiba arrimahaas marka waxaan wargelinay hay'adaha baarista dambiyada sida CID-da ama booliiska iyo hay'adda nabad sugidda labaduba waxay bilaabeen markaas wareysi fara badan inay sameeyaan baaris inay sameeyaan shaqaalihii la xiriiray oo dhan arrintaas inay la xiriiraan oo wareystaan oo moogtay ka qaadaan wareysi iyo xog ay ka qaadaan arrintaas weli way socotaa ninkii kaashirka ahaa oo weynaa sidiiba u baxsaday dadka intii kale oo tuhum iyo waxaas ay waxa ku socota nidaamkaas baarista oo baaris dambiyeedka ah ku socda arrintaas marka waxaan war xogteeda dambe oo dhabta laga sugayaa biliiska iyo nabad sugidda